safiirka Somaliland u fadhiya dalka Itoobiya Axmed Xasan Cigaal oo waraysi gaar ah telefishinka Ariel ku siinayay magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn waraysigaasi uu bixiyay kaga hadlay ilaa hadda wixii uu qabsoomay. wallahi safaaradu muddo way soo dhisnayd oo almost ilaa 10 baan kii 10 baan ahay ee tagay halka danjire ahaan Somaliland u taga intaabana way soo dhismaysay intaabana step by step ayaanu soo bareynay marbay ahayd liaison officer marbay ahayd liaison office marbay ahayd maxaan kolba heer bay soo gaadhay imika waxaanu nahay permanent diplomatic mission of Somaliland baanu nahay danjiraha Somaliland baa la noo ictiraafay Itoobiya ay gaar ahaan ugu ictiraaftay waanu la xidhiidhnaa safaaradaha waanu la xidhiidhnaa dawladda imanaya wixii maxaan ku yiraahdaa dawladdu ay reception qabanayso اعتبارك يقال النسيا ولا نويرا وانا نكقيب الله مرة فربضنا هولا كلو جاروان وذا الله مركا انت أصبح وحياة هيدا development كي إلا وقت جاي ترتي أي سوق هذا نيس سفيركو جاست كلا وحاو كهالي بابور حكومة Somaliland أو علي سيد الكيتوبيا علي تبابور تاسي أيا كرد عدي مقالة وشالي wixii uu magaaladaasi ku soo arkay iyo waliba qaabka wareejinta baabuurtaasi iyo dadweynihii isku soo baxay ayuu si kooban uga hadlay. 12 baabuur dawladda Itoobiya waftigeedii oo nala socdo halka Hargeysa naga raacay ayaanu ku wareejinay dadkaasuna waa dad cajaayib caynkan baan moodayni wajaale muddo ay ugu dambeysay dad aad u tiro badan baan soo dhaweeyay Somaliland ha noolaato Muuse Biixi madaxweynaha Somaliland ha noolaado isku xidhkii baa samayseen Itoobiya iyo Somaliland ayaa aad iyo aad u adkayseen ayaa la yiri aad iyo aad baa la noo soo dhaweeyay runa mudana safir nin aqoonyahana oo dabcan siyaasadda Somaliland aqoon dheer u leh ayaa tahay safiirkii adiga ka horeeyay Cali Shoobe xukuumadii Siiraanyo waqtigii ay jirtay wuxuu waxa u suurta gashay in madaxweynaha uu ra'iisul wasaaraha dabcan ra'iisul wasaarihii hore la kulan siiyay hadda ra'iisul wasaaraha cusub oo la leeyahay idinku waa laadihiin ilaa imika maxaa diidan inay madaxweynaha Somaliland kulmaan maadaama ra'iisul wasaaraha cusub loo yahay in madaxweynaha Soomaaliya uu la kulmay maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood madaxweynayaasha inuu la kulmay Somaliland madaxweynaheedii in ra'iisul wasaaraha uu la kulmo safir maxaa ka hortaagan waa su'aal run ahaantii aad iyo aad u fudud inaan kaaga warramo dawladdii hore way isbedeshay dawladdan dambaa timi dawladdan dambana buuro mashaakila ayay u timi oo dawlad waliba markay timaado si gaar ah bay doontaa inay wax u dhigto Somaliland waxay ugu taalaa prime factor kay ugu taalaa cidda ay la kulmayso iyo goorta ay la kulmayso iyo waxay ka yeelayso muddo dhaweyto waxa baanu filaynaba in ra'iisul wasaaruhu isagoo aan ninkii buurihii Eritrea jabiyay ninkii silsiladii jeelasha adkaa jabiyay ee furay ninkii South Sudan yiri khasab ku heshiisiyay Soomaaliya tagay meel walba tagay waxaanu filaynaba inuu isaguba yimaado Somaliland which was very much likely ay ahayd inuu yimaado balse hawlahan faraha badan ee haysta gudaha tan kilalku ay u dambayso ayaabu ku mashquulsanaa oo xalilayay inaanu uba yeelin baa laga yaabaa isaguba inuu halka yimaado Somaliland ayaabaynu filanaa ninkuna waa nin Oromo gobolkan baabu ka soo jeedaa inuu jaarka nahay walaalihii iyo dadkooda oo dhamina halkan baabay joogaan nimay walaaliyihiin halkan baabu joogaa baa laygu yiri ma araganaguye waa isaga waa ninka dawlad deegaanka Oromada xukuma ee la yiraahdo Lama Magersha dadkoodu waa dadkan halkan jooga Hargeysa jooga marka waxba kama xidhna inuu yimaado ictiraafka Somaliland kolba meel buu liiqa soo dhigay maanta ayuu ugu dhow yahay marka ma aha uun hayska yimaado arrin inuu la yimaado ayaynu rajaynaynaa insha Allah oo inagaan taginba inuu arrin la yimaado halkan yada ah kaga dhawaaqo waana nin ku dhac leh waana nin taariikhda galay insha Allah taariikhdiisana intan Somaliland dhawaaqeeda ayaaba uun uga hadhay uu ku dhawaaqayo Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.